wanaagsan khiyaarta wada naga daawanaysa idil ahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray. halkani waa Warsan Media Group. qodobada warkiyaga ugu doorka waaweyn waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qaafta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo indheeyay badqabida basaska maanta la filayo in lagu daabulo xujayda Soomaaliya. wafdi ka socday guddiga awqaafta iyo arrimaha diinta ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo isna kormeer ku kala bixiyay deegaanada iyo guryaha la dejiyay xujayda Soomaaliya. kulan tacsi duco iyo baroor diiq ah oo loo qabtay gudoomiyihii gobolka Banaadir ee geeriyooday Allah u naxariistay injineer Yariso. muhaajiriin iyana u dhalatay wadanka Ivory Coast oo ay dowladda wadanka Tunisia ku go'doomisay saxaraha lama deegaanka ee u dhaxeeya wadamada Liibiya iyo Tunisia. nin dhagax ku tuuray madaxweyne Museveni oo xukun lagu riday. intaas waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu doorka waaweyn. haatanna warkii oo fidsan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Aadan Duubow iyo gudoomiyaha bixtada xajka Maxamed Abdiraxmaan iyo waliba guddiga arrimaha xajka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kormeer ku soo maray basaska lagu qaadayo maanta oo gabi ahaanba xujayda islaamka ahi ay u dareerayaan qaymadaha Mina. mas'uuliyiintan oo u kuurgalayay badqabida basaskan lagu qaadayo ama lagu daabulayo xujayda Soomaaliyeed ayaa sheegay in basaskani ay leeyihiin dhammaanba adeegyadii ay u baahnaayeen xujayda Soomaaliya ee iyagu sanadkan lagu daabulayo basaskani. waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiintii iyagu halkaasi ka hadlay hadaladooda. xujayda Soomaaliyeed haddii la lahaa haddii walo la gelinayay waa mataqaanaa martida alle haddii walwal shalay la qabay in maanta ay ku soo xareyseen 11500 iyo inta ziyaadada ahaydba in ay maanta xarunta Makka ay kulli ku sameeyeen oo Madiina laga soo wada aruuray. aad iyo aad baa wafdi ka socda guddiga awqaafta iyo arrimaha diinta ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo uu hogaaminayay gudoomiyaha guddigaasi mudane Shariif Sheekh Una Maye oo ay wehlinayeen gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi mudane Cali Yuusuf Cusmaan Cali Ganey iyo dhammaan xubnaha guddigaasi oo iyagu ku sugan magaalada Makka al-Mukarrama ayaa iyana kormeer ku tagay deegaanada iyo guryihii la dejinayay xujayda Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama. guddigan
oo intii ay ku jireen kormeeradooda waxa ay sidoo kale xaqiijinayeen fulinta ballamihii lala galay shirkadihii soo duulinayay xujayda iyo sidoo kalena qaar ka mid ah xujayda oo iyagu qudhooda guddiga ay halkaasi ku wada kulmeen isla markaana sheegay inay yihiin dad murtaaxiyiin ah oo aan haba yaraatee wax mushkiladahay ku qabin aqalada la dejiyay iyo sida loo maareeyay xujayda oo dhinacooda hadlayana waxa ay yiraahdeen sanadkaana koobiya alxamdulilah ilaahay mahadiis sinib aan ku gudanayna insha Allah inta hadda noo dhimanna ilaahay noo barakeey inta hadda wax dhibaa soo maarka wax dhibaa soo maarka makaan ku soo deg Madiina ku soo degnay hadana makaan loo soo qaaday waa fiicanna alxamdulilah ilaahay nimadiis xijayanahay si fiican aan la caawiyay dadka aan la kulanna meeshan aan ugu nimid si waxay nolol dhaqmeen oo bini'aadanimada aad ugu fiican waa dad culimo ah waa dad aad noo dhowray waa dad aad noo tixgeliyay waxayna geeyeen xaramka waana soo celiyeen wiiska darabna waana saaraan waa naga soo dejiyaan horay noo wadaan gadaalay noo wadaan dadkan aad dad noo shaqeeyay waa saaco waxaan la kulannay dad aad iyo aad u fiican waxaan dareemayaa inay aad iyo aad shirkadda daalo aad qadamaadkeeda uu fiican yahay aniga aan la kulmay aad qadamaadkeeda oo khatar u yahay oo si fiican noola shaqeyso mar walba midka walba waxa ka sii macaan badan kan ka dambeeya الله وبركاته مقعي ودكتور سكري محمد سمو وحان كسو حجي قبل كباي مقعد كونفرقل الصومالي الحمد لله هذا يعني وفرح سنة هاي إمانتها عن حجك إيماني عركونوا إيجي وعالم فيها وحان إله أقبرينا إن دولة الصومالي أود إيو سيهاتو كسعود تسكو ونكس حجك حجك إن نظام كان لبدله وهذا نظام وكبدله إنه إلهي ونوافجه الحمد لله وحنا يسمى الله كلنا waxaan la kulannay caawada waxaan kaga soo baxnay basas waxaan ku tagnay Hargeysa markaan tagnayna waxaan naga soo qaaday diyaaradda la yiraahdo falay Dubai waxayna geysay Dubai taransi waxaan ku ahayn muddo aan malaynayo hal saac kadib diyaaradda laftigeeda naga soo qaaday sida shirkadda Jidayna keentay Jidana basas baa naga soo qaaday basaska waxayna keenay cimaaradan hadda wali waa ku suganna qof kastoo naga midana sariir wuu seexda kulankan oo ay isugu yimaadeen maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan ayaa ahaa mid tacsi iyo duco loogu diriyay mas'uuliyiintii ku dhintay sidoo kalena ku dhaawacmay qaraxii lala eegtay xaruntii dawladda hoose ee Xamar kuwaas oo ku jiray Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yiriso iyagoo Ilaahay uga bariyay in intii geeriyootay uu ku qamado raxmadiisa jannatul firdawsa halka kuwii iyana dhaawacmayna loo bariyay shifaa'ul aajil gudoomiyaha haweenka degmada Kaaraan ayaa duco iyo tacsiba hawada u marisay halka gudoomiyaha degmadaasina isna dhinaciisa uu tacsi kale hawada u mariyay dadkii ay ahladoodu halka ku geeriyoodeen kulankan oo ku soo idlaaday degmada Kaaraan ayaa si la furan la isugu duceeyay gobolka Banaadir Allah u naxariisto asaga intuu madaxda u ahaayo meesha ay masiibadu kula wada dhacday Allah u naxariisto gacanka gardarana dishay anakana gadaashiisana Allah lama fidneeyo bacdal duco waxaan leenahay aan u duceeyno aloo duceeyo anjalad video ah oo lagu baahiyay baraha internetka tira badan oo dad ahina ay wadaageen tan iyo markii filimkaasi la soo geliyay social media horaantii bishan August ayaa muujinaysa dad u dhashay wadanka Ivory Coast oo muhaajiriin ah deganaana wadanka Tunisia kuwaas oo u dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii ay gumaysiga ka xoroobeen reer Ivory Coast in dadkaasi ay oo isugu jiray dumar iyo caruur ay qafaasheen Blaze-ka wadanka Tunisia kuna daadiyeen saxaraha ka cagan hawlgalka militaarka ee u dhaxeeya wadamada Liibiya iyo Tunisia taatana halka ay kaga dhaqaajiyeen iyagoo aan xitaa haysan biyo iyo baad toona
xiriir ay dadkaasi la sameynayeen eheladooda wax yaroon ka hor intii aanay baktiyeen telefoonada ay wasiteen ayaa waxa ay ku dirayeen fariin ku aadan halista ay galeen iyo halka lagu goodoomiyey inkastoo ilaa haatan aanay jirin cid garanaysa halka ay cirib iyo jaan toona dhigeen. maxkamad ku taalla waddanka Uganda ayaa xukun ku riday ninka lagu naanayso Bobi Wine hase yeeshee magaciisu yahay Robert Kyagulanyi oo ah heesaa isu bedelay siyaasi kadib markii bishii August sanadii 2018 uu isaga oo xilliga la socday koox mucaarad ahi oo dhagxaan la dhacay gawaari kolonya ah oo laga leeyahay madaxtooyada waddankaasi Uganda kuwaasoo xilliga galbanayay madaxweynaha waqtigiisu dheeraaday ee keligii taliska ah Yoweri Museveni. heesaagan oo leh jamaahiir isaga u jidbaysan taageersanna mowqifkiisa siyaasadeed ee isbedel doonka ayaa hurdo gariir ku riday madaxweyne Museveni kadib markii madaxweynuhu uu la muraal dilaacay taageerada ay dadka reer Uganda u hayaan 37 jirkan fankii uga guuray dhinaca siyaasadda. akhyaarta qadirtii qiimaha inaga mudane hawada naga daawanaysa taasina waxaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanaysaan Warsan Media Group. haddaba tani intaan dib dambe warkan oo kala haddii alla awood u raali ka noqdo dib mar kale hawada ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa innagoo isku duuban fi amaanillah.